taliyaha qaybta toddobaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland ee gobolka Sool ayaa gaadhay degmada Ceegaaga waxaana si weyn u soo dhaweeyay maamulka degmada Ceegaaga waxgaradka iyo odayaasha deegaankaasi. Intaasi kadib taliyaha qaybta toddobaad Mahad Cambaashe Cilmi iyo gudoomiyaha degmada Ceegaaga Axmed Ciise Cawil ayaa duleedka koonfureed ee degmada Ceegaaga ku soo dhaweeyay ku dhawaad 130 askari oo ka soo goostay jamhad dhawaan laga aasaasay magaalada Buuhoodle. ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay saraakiisha hogaaminaysa ciidankan soo goostay. waxaan ku soo biray jamhuuriyadda Soomaaliland in loo qarameeyo xubnaha ciidanka. Mahad Cambaashe Cilmi taliyaha qaybta toddobaad ee gobolka Sool iyo Cabdiqani Cumar Salwe oo kamid ah saraakiisha qaybtaasi ayaa dhankooda halkaasi ka hadlay. dhaweynaya reer Ceegaag ciidankii hore u joogay ee beereedka ahaa iyo ciidanka cusub ee nagu soo biiray jamhadda SSC sheeganaysa ka yimi odayaasha beesha ee nagala shaqeeyay ama ka shaqeeyay sarkaalka qaybta ka tirsan Cabdiqani isaguna kaalin weyn ka qaatay. waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay in aad naga soo mid noqotaan. waanu idin soo dhaweynaynaa. waxaan u malaynayaa halkan dhowr goor ayaa xaflado laga duubay ciidan oo odhanaya hala qarameeyo. wax badan kama suurtagelin amarka Ilaahay bay ku dhacdaa. taliska iyaga waan doonay, talisku waa nala doonay, alaf baa la cunaa, may suurtagelin. maantay suurta gashay oo aan tani Ilaahay amarkiisa aan rajo waxaan ka qabnaa. saacaddaa laga bilaabo waxaad ka tirsan tihiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaad leedihiin xuquuqda intayadaasi aanu leenahay. annagaan nala mid tihiin darajadeeda agabkeeda cidda gacanteeda laga sugayaa ee halkan xukunta ee iminka taliyaha qaybta toddobaad aniga weeye. soonkan iyo ile iyo Ceegaag intay isu jiraan waa taqaanin. waxaad ka mid noqonaysaan qaybta toddobaad gaar ahaan weliba waxaan idinka ballan qaadaynaa inaanu si wacan oo buuxda idinla shaqayno. waxaa taliyihii qaybta toddobaad isagaa dhulbaanta mas'uuliga ahaa aagan saacadda laga bilaabo saad ku qaramaysantiin qaybta amarkanu qaadanaynaa. odayaashii waxgaradka degmada Ceegaaga ayaa dhankooda bogaadiyay ciidanka soo goostay. ciidankii qaranka ee muddo badan aan daba joognay ee muddada badan juhdiga aynu gelinay haddaynu ku guulaysanay maanta oo madaxdii u sareysay guutada toddobaad taliyaheedu inuu hortaagay waa Ilaahay mahadi. ugu dambeyntiina xogayaha degmada Ceegaaga Cabdilaahi Aadan Xuseen iyo gudoomiyaha degmada Ceegaaga Axmed Ciise Cawil ayaa si wada jir u soo dhaweeyay ciidankani ayadana sheegay inay ka qayb qaadan doonaan nabadgelyada iyo horumarka degmada Ceegaaga isla markaana aan deegaankani lagu ogolaan doonin cid khalkhal gelinaysa nabadgelyada deegaankaasi. waxa ilaahay maanta ka gaadhay waan ku guulaysanay. dhaybaha naga harsan dhaybaha naga harayna insha Allah biidnillaahi kariim si degdeg oo dhaqsale baan u helaynaa. goobta aan ku suganahay waa Ceegaag waa koonfurta Ceegaag. waxaan soo dhaweynaynaa waftiga iyo Mahad. waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan la soo gaaray Mahad Cambaashe maanta. waxaan codsanaynaa in la soo gaadho dawladda oo dhan dhammaanteed wasiiro iyo sanaano in la soo gaadho ayaanu codsanaynaa. taliya degmada waa degmo balaaran. taliya mujtamacu intan maaha. qoriga jooga intan maaha. ciidanka qaranka doonaya intan maaha. ciidanka soo goosanaya intan maaha. uqaasha shaqaynaysa degmadu intan maaha. waxaan kaa codsanayaa taliya Mahad anigu aad iyo aad kuu kalsoon. waxaad gaari weyda mooyaane waxaan naga hagranayn xuquuqda aanu leenahay ka reer Ceegaagaan inaanu helnay ciidan